الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada saaxiibayaal mar kale. dhacdadan aan maanta soo qaadanayna waa dhacdo xanuun badan. waa dhacdo gilgishay qulubta dadweynaha. waa xasuuq bulsheed oo bilaabmay bishii Diseembar ee 2022. runtii waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah adduunka. suurayso adiga oo salaada subax ka soo baxay kuna waa bariistay hubka kiisa wax gumaada iyo dagaal ka soo bilaabmay koonfurta magaalada aad joogto. hubka kiisa waaweyn ayaa ku soo dhacayay goobaha shaqooyinka iyo cisbitaalada iyo goobaha ay dadweynuhu ku kulmaan. dhawaaq aysan dhegaha daayartu maqli karin ayaa ku soo dhacayay magaaladii ay haleeshay dhibaatadani. cidda dhibaatada geysanaysay ayaa ahayd ciddii u dhaaratay inay ilaalin doonto bulshadaas. waxaa ruuxdooda ku waayay arday aan waxba galabsan. waxaa ku barakacay ku dhowaad ummad gaadhaysa 80,000 oo qoys. waxaa ku burburay hanti aan cadadkeedu xisaabnayn. waxaa ciidda ka hoos maray aqoon-yahan aqoon badan ku suntana. magaalada ay dhibaatadani ka dhacday waa magaalada Laascaanood. dhibaatadan oo ka soo bilaabatay dilal ka dhacayay 12 sano ee u dambeeyay iyada oo ay dilalkaasi la iba fureen maamulka Soomaaliland. dilalka qorshaysan waxaa ku naf waayay in ka badan 100 ruux. iyadoo shacab ayaa dhacay dabayaaqadii bishii Diseembar 2022 balse xukuumadda Soomaaliland waxa ay xal uga dhigtay xabadii loogu talagalay in loo isticmaalo cadowga aan islaamka ahayn. gadoodka waxaa ku naf waayay dhalinyaro badan oo tuurisay dhagax balse loogu jawaabay dhashiiki. gadoodkaasi wuxuu sababay imaanshiyaha garaadadii gobolka iyo caqliyada waxweeleeya. shirkii koowaad waxaa ka soo baxay abhin la abhinayo xukuumadda Soomaaliland iyada oo lagu wargeliyay gabi ahaanba inay baneeyaan guud ahaan gobolka Sool iyo nawaaxigiisa balse xukuumadda Soomaaliland arrinka dhag jalab uma sii. taa bedelkeeda 6 February ayay xabadi ka soo bilaabatay koonfurta magaalada Laascaanood iyada oo loo fadhiyo shirkii garaadada. suuqyada bulshaduna ay camiran yihiin hooyooyinkuna u diyaarinayaan ubadkooda af bilowgii. xukuumadda Soomaaliland waxa ay saacado yar gudahooda ku bilaabeen inay duqeeyaan magaaladii deganeed saacado yar ka hor. waxaa isbedelay jawigii Laascaanood. hawaduna waxay noqotay baaruud. cadceeduna waxa ay ahayd mid aad u daran. dumarkii iyo carruurtii ayaa hubka kiisa waaweyn ku haleelayay hoygooda. magaaladan ayaa martigelisay dhawaaqa xoogga badan ee rasaasta. dhimasho fara badan iyo dhaawac ayaa laga soo daadgureynayay guryaha. maalmo adag ayaa u bilowmay bulshadii ku dhaqnayd Laascaanood. hooyooyin badan ayaa naftoodii ku waayay iyagoo raadinaya gawaadhi ay ku qaadaan carruurtooda. aabbayaal fara badan ayaa macasalaameeyey dunida iyagoo difaacaya ubadkooda. daayar fara badan ayaa ciidda ka hoos maray iyagoo daabulaya dhaawaca. carruuro fara badan ayaa martigeliyey luunka gaajada. hanti badan ayaa ku burburtay duqaymihii ka imanayay Soomaaliland. in ka badan 5,000 oo arday ayaa ku waxbarasho beeshay. 80,000 oo qoys ayaa bilaahoy ku noqday buuraha. hubka Soomaaliland wuxuu ku habsanayay goobaha badbaadada sida dhakhaatiirta, masaajidada iyo goobaha tacliinta. waa su'aal daaweyno dul harsanaysa culimada Soomaaliland. maxay diintu ka qabtaa qofku abihii oo aad u geysatay xasuuq bulsheed, mid ganacsi, mid nafeed iyo mid dhaqaalaba. dadkii kale saddex ayay u qaybsameen: qayb taageertay xasuuqa Soomaaliland iyo qayb ka hadashay inuu dulmi yahay xasuuqa Soomaaliland iyo qayb caawisay dadkii barakacay. magaalada Laascaanood waxay martigelisay duqaymaha Soomaaliland in ka badan 2 bilood waxaana gebi ahaanba istaagay ganacsigii ku kala gooshi jiray magaalada Laascaanood. waxaa weli ka socda dagaal u dhaxeeya dadkii shacabka ahaa iyo xukuumaddii Soomaaliland. iminka Laascaanood waa magaalo suuqeedu cidlo yahay, masaajidadeeduna xidhan yihiin badankoodu, dadkii lahaana duurka joogaan. bulshadii ku dhaqnayd gobolka Sool waxay marti ku yihiin deegaanada hoos yimaada magaalada Laascaanood. waxay gebi ahaanba isdaayeen waxbarasho waxaana maankooda ka guuxaya hubkii ay Soomaaliland ku soo qaxisay. waad sifashaa laakiin Ilaahay kaama dhaafee. nabsiga Laascaanood wuxuu dul hoganayaa xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi. shacabka Hargeysa, Burco iyo Boorame iyo Berbera, Ilaahay wuxuu eegayaa halka aad u hiilisaa xukuumadda mise shacabka Laascaanood.
dulmiga rabbi baa ka xarimay naftiisa bini aadamka dhexdoodana saasuu ka yeelay xukuumadda Soomaaliland waqti ay ahaataba waxaa la saari doonaa maxkamadda Ilaahay taas oo qareennada jooga ay yihiin kuwa been ma sheegayaal ah xaakimka wax xukumayaana uu yahay Allihii koonkan abuurayba shacabka Laascaanood waxay gargaar buuxa weydiisanayaan Allaha weyn ee wax kasta isagu bixiya iyagoo ku tiraabaya Ilaahow wax ka khayr badan noogu bedel waxay gurmad weydiisanayaan Allaha weyn ee cidda uu u gurmado aysan cid kale u baahan waxay caawimaad weydiisanayaan Allaha weyn ee isagu wax caawiya gargaarka Ilaahayna waa mid dhow daawade daba adigu haddii aad tahay qof diidan dulmiga muuqaalka lay garee haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir mahadsanid